السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو محمد شيخ حسن يوتيوب كداوانيسان waa iftiinka dhalinyarada fadlan subscribe saar haddii ay tahay markaygii kugu horeysay oo aad soo booqato kanalka muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada mahadsanid kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka maanta waxaan ugu hadlaynaa insha Allah saaxibu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu أبو بكر الصديق مقعيسو دمستيران وعبد الله ابن عثمان ابن عامر هويديسنا مقعيدا وحالا أورين شيري سلمى بنت سخر قبيل كيسونا وقريش لفت رير تايم وحوكودا شي مقالة مكة لوصنو إلح بلود كدب دعددي الفيل أبرها الحبشي ودونا إنو كبر بريو كعبادة بركيسان waxay ku beegneed bishii October 573 wuxuuna dhintay Jumada al-Awwal 13 Hijriya oo ku beegan 23 Agoosto 634 Milaadiya Islaamka ka hor wuxuu ka mid ahaa madaxda Quraysh ee maamuuska leh weligiina sanam macaabudin zino magelin khamrina macabi jirin wuxuu aad ugu xeel dheeraa abtirsiinada qabaa'ilka Carabta ah oo idil wuxuuna ahaa ganacsade deeqsi ah markuu soo islaamay kadib hantidiisa oo dhan wuxuu ku bixiyay diinta Ilaah wuxuu aad u jeclaa sadaqada sidoo kalena wuxuu xureyn jiray dadka dhiban ee adoonsiga ku jira waa qofka ugu fadliga badan ummadda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uguna iimaan weyn waa saaxiibka koowaad ee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ahaana khaliifka koowaad ee khulafaa ur-raashidiinta ee dowladda islaamka Abu Bakr waxaa loo yaqaanay al-Siddiq runsheege sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee rumeeyay Nabi sallallahu alayhi wasallam oo rag ah waxaa ka horeeyay oo kaliya xaaskii nabiga ee Khadiija radiyallahu anha wuxuu la hijrooday nabiga magaalada Madiina waxayna gaaladii Quraysh dul dhigeen madaxiisa 100 neef oo geel ah sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay u dul dhigeen oo kale wuxuu la galay Nabi sallallahu alayhi wasallam godkii lagu magacaabi jiray Ghaar Thawr waxayna ku jireen 3 habeen wuxuu ka qayb qaatay oo uu goobjooge ka ahaa dhammaan dagaaladii iyo dhacdooyinkii Nabi sallallahu alayhi wasallam sida dagaalkii Badr Uhud Khandaq Khaybar Hudaybiyah furashadii Makka iyo wixii la mid ah Abi Bakr waxa uu guursaday 4 haween ama 4 xaas magacoodana waxay kala yihiin قتيبة بنت عبد العزة حين أول شيء أبي بكر عبد الله إيو أسماء أم رومان بنت عامر الكنانية وحي أول شيء عبد الرحمن إيو عائشة أسماء بنت عميس وحي أول شيء محمد حبيبة بنت خارجة وحي أول شيء أم كلثوم مركوسو إسلامي وحو بلاوي فافين تدين إسلامك waxaana gacmihiisa ku soo islaamay Usman ibn Affan Zubair ibn Awam Talha bin Ubaydillah Sa'ad ibn Abi Waqas Abdurrahman bin Auf Abi Ubaidah Abi Salma iyo kuwa kale oo fara badan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu xanuunsaday oo ay geeridiisu soo dhawaatay wuxuu ku amray Abu Bakr inuu muslimiinta salaada ka bixiyo kadib geerida Rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabta ayaa argagax ku dhacay qaar baa istaagi waayay qaar hadalkii ayay gabi kadib geeridii rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabta ayaa argagax ku dhacay qaar baa istaagi waayay qaarkood hadalkii ayay gaween heer uu gaaray sayidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu inuu cagajugleeyo qofkii yiraahdo rasuulka Allah wuu geeriyooday laakiin Abu Bakr waa uu deganaa oo iimaankiisii ayaa sugay xaaladaasna isaga ayaa dejiyay markaasuu saxaabada kulmiyay una akhriyay aayad quraan ah oo tilmaamaysa in rasuulka alle uu bashar yahay geeriduna ay xaq tahay markaasuu Umar fadhiistay aayadu akhriyayna waxay ahayd wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. asxaabta ayaa abubakar u mubaayacooday ama doorteen inuu noqdo khaliifka koowaad ee islaamka. taariikhdu markay ahayd 12 bishii saddexaad 11 hijriya ama 632 miilaadiya. wuxuuna xilka hayay 2 sano iyo dhowr bilood. wuxuu qaaday dagaalo waaweyn kuwaasi oo uu la galay murtadiintiisa godidka ahaa iyo kuwii nebinimada sheegtay sida musaylamatul kadaab iyo dhulayxa iyo sajaax. wuxuuna ciidankiisa hogaamiye uga dhigay Khalid ibn Walid kaasoo guulo ka gaaray dhammaan murtadiinta barkood. islaamka ayay dib u soo noqdeen, barkoodna waa la laayay. kadib wuxuu ciidanka islaamka u diray furashada Ciraaq taasoo hoos tagi jirtay dowladda Faris, haddana waxaa loo yaqaanaa Iiraan. ayadana sidoo kale waa la furtay. wuxuu bilaabay furashada Shaam, laakiin xanuunkii geeri ayaa ku simi waayay. markuu abubakar xanuunkii geerida ku cuslaaday, wuxuu isugu yeeray saxaabada wuxuuna yidhi, iga guddooma xilkii aan idin hayay oo cidaad rabtaan doorta. waxayna yidhaahdeen, adigaan kugu kalsoonahay ee cidaad rabta noo door. markaasuu Cumar bin Khadaab doortay. abubakar radiallahu canhu wuxuu geeriyooday maalin isniin ah bisha Jumaadal Aakhir ama bisha 6aad ee islaamka 13keeda. intaas ayuu noogu ogyahay taariikhdii aan kaga hadlaynay saaxiib rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam abubakar sidiiq. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. wixii talo iyo tusaale ah dhanka hoose ee faalooyinka lagu qoro inoogu reeb. tan iyo muuqaalka xiga intaynu ku kulmayno insha Allah. ku raaxayso noloshaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.